hadlaynaa ugu muhiimsan waxa weeye horta inaanu taageero dhowr qodob taageero باقي أما خطبتي قدوميها حسب الوطني قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله عشرة ونالنتي لو يتوشاي تسوي كهضلي طرق كهضلي يو باقي وأسوتي دي تاجرش حسب جينا يسوي معطان حفيز كحسب ووربحين مهمة لو بديو أرنتها وحكى على تاور تاجر صنع هاي سموجل أيام تاجر صنع وها كذا وقالدي حكومة كلية فالعلم الكسميين أضفالهم وهمتي وحنا لا بالكرنا وأي الحرام مسؤولين كم من المسؤولين تحسبك وكم من حقيقي جود تحسبك هذا حسين عبدي يو أفريقيا كي حسبك فرخد بطون شاعتون خاصة عن همتي لا بالكرنا إن داول هروح ينوجينون إن صحافة اللي راشوا حوالنا أو ما أنت روح اللوسو طلابي اللوسو جدي إن معارض كي حسب المعارض كهان اللي يشوف مورن كرتان تتكلم ما هاد لكرتان ما هاد لكرتان وتشوف مورن كرتان أو أساس البنية الله ما حبنا فسنا وصل قاعدة كرهن تيم معه حلتي حسب ده إهرجيسا يدنا عيدا أي لوريدي وحي حصوص الصيد كل يسقال بقولي ستيت هني يسقال كي حمر مقدشو وانشوبي أو أي دعوين كان عضي ساسو كله ولاقي يعني تذكر إن أي مساج كشق على صوفي إذا عبد الرشيد على صوفي الشيخ عبد الرشيد على صوفي ولا حنا مركز الحري إن أخنتها تذكر أي كموتشيان ترين كل هذينكي إنتان لجارين ما قربنا ما تكيكو هريبة عيدك لو ريجي مساجدكي يعجبك كيسي أو لو بتوعينا ولا كمان لو كي exactly وصلي أو كلام إنه ينو صدق صنوات كهروحي أينو كجيل لنا ديدني إنه ما أنت كتيران هرجيسا أو ما أنت كتيران دلكي وحلا قادن كرايا معها وحلا أقبل كرايا معها تاجرياش حسب وطني UK شوجا waxaan ugu baaqaynaa dunidaba waxaan ugu baaqaynaa in ay runtii si marka hore inay arrintaas dareen isku mid ah ka qaataan inay taageero hiil iyo hooba xisbiga isla garab taagaan kuwa gudaha joogana waxaan ugu baaqaynaa inay ka kacaan oo ay diidaan dulmiga wax la aqbali karaya maaha wax la qaadan karaya maaha inay diidaan dulmiga حالة أدلك كتيرين مكان وعرشوق لنا كتير كريمينو أسلاد ردد وحا فهمتي عيدا كا إن دلك عيدا قبصدو الملتري قبصدو أو أينو لهذا ديمقراطية إنو شيئين إني لبا وحبين سومال لان كفاني تريو أينو دا أفريقيا ديودو كفاني تريني أو هاي ديمقراطية هي أمان لبا ديبا حكومة موسى وصل لابد أنتي وجود بيساعد الديمقراطية ضحية وثمان صل لابد ما أنت مالي مدوبي وتحسو مالي وحلا فهمتي لقى أقبل مرنا بماها وحنا نبغى ليس يري دونا أو سمين دونا إن أنو جالسين الدنيا ده كوي قلدي الديمقراطية ده لفتي اللي نجا عاوج لي وركاين عم جالسين تاجر إيش حسب جانا دمان تود waxaan ka codsanaynaa meel kastay joogaan inay arrintaas gaarsiiyaan waxa dalkii ka jira inay gaarsiiyaan ciddii dimuqraadiyadda inaga taageeri jirtay inay dacwado ka furaan hay'adaha human rights iyo international community gaba arrinka intiisa kale waxaan uga baxayaa mas'uuliyiinta kale laakiin xukuumadda waxaan u sheegayaa inaanan arrintaa أو سمايسين يوحى يشين إن أنا مرنبا إن كجهر دونين وحى كلاو عن كتريا تدوينها غير سومال لان عن قباقيا إن أي تدوينها غير سومال لان عن قباقيا إن أي قرني مدو دي مرتهم بيكدي جيساي إن كمان سقف صدام إن ميلو بسوي ذا شيئا وحان تاجروا لحاله وموجنينا
dhawaaqa kasoo yeedhay guddoomiyaha xisbiga wadani maanta ee ugu yeedhay xubnaha xisbigu inay isugu yimaadaan xafiiska xisbiga. sidaan la socono xisbigu kuma uusan baaqin banaanbax maanta, laakiin wuxuu xubnihiisa isugu yeedhay inay wada tashi ka galaan xaaladda dalku marayo. waxaa nasiib xumo ah in maanta weerar lagu soo qaaday. waan la socono caawa xaaladda uu dalku ku jiro, in xubnihii sare ee hoggaanka xisbigu xidhan yihiin, in xafiiskii xisbiga ay la wareegeen ciidan. horaa loo yidhi, soomaalidaa tidhaahda raggi walaalow wuxuu ku dhaamo lawaa. waxaan u sheegaynaa xukuumadda muuse in haddii uu isku dayo fal kasta oo uu isku dayo inuusan ku caburin karin shacabka, wuxuu la socdaa codka shacabku inuu ka awood badan yahay qoriga kaaraha iyo BM-ka iyo AK-ga, inuu ka awood badan yahay. waxaan ugu baaqaynaa xubnaha guud ahaan inay ka dhabeeyaan oo berrito usoo baxaan, muujiyaan cududooda, aysan ka biqin askarta iyo qori lagu soo fiiqo midna. ciidamada waxaan ugu baaqaynaa inaysan dadkaa shacabka ah ee aan hubaysnayn ee muujinaya dareenkooda ee xafiiskooda u socda inaysan ku ridin wax xabada. waxaan ka digaynaa in dhibasha timaado oo xabadi dhacdo. haddii ay taasi timaado, waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona xukuumadda kulmiye oo mas-uulka ka yahay Muuse Bixi. waxaan u sheegaynaa inaan la iskaga hadhi doonin haddii xabadi dhacdo oo dadi dhintaan. waxaanu caddaynaynaa in warbixintu iyo riboortku ay halkan soo gaari doonaan. waxaan u sheegaynaa inaysan xukuumadda muuse iyo muuse lafahantiisu haddii ay falalka noocaasa ku kacaan inaysan ku badbaadaynin dalalka Yurub. anigoo ku hadlaya afka qaaradda Yurub afhayeenkoodii, waxaan laamaha Yurub ugu baaqayaa inay arrimaha dhaqdhaqaaqa ah ee gudaha ka socda isha ku hayaan, inay diyaar garoobaan in fal kasta oo gudaha ka dhaca ay u diyaar garoobaan fal celintiisii. xukuumaddu haddii ay isku daydo inay dadka gudaha jooga caburiso, ma caburin karto ka banaanka jooga. halkan baanu ku caburinaynaa, halkan baanu maxkamad uga furaynaa, halkan baanu kula tiigsanaynaa shuruucda caalamiga. waa in laga waantooba. askarta waxaanu ugu baaqaynaa inaysan marna isku dayin inay dadkaa shacabka aysan handadin, ay u ogolaadaan inay gaadhaan xafiiskooda si nabad ah oo ay la kulmaan maamulkooda. waxaa jirtay qisad dhab ah oo qoraalkeeda aynu ognahay, oo maanta aynu ognahay in raggii la xidhay qoraal laga soo saaray markii guddoomiye Cere la isku dayay in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka. Muuse Bixi buu ahaa ninkii soo jeediyey in la xidho oo xabsiga la geeyo. ha isku dayo maanta inuu qabto oo xidho, ha isku dayo xubnaha hoggaanka inuu qabto. waxaan uga digaynaa falalka noocaasi inaysan ku dambayn doonin qosob, inaysan ku dambayn doonin kursiga oo lasii haysto, inaysan ku dambayn doonin madaxtooyada oo lasii joogo. waxaan ka digaynaa falalka noocaasa. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani inay berrito muujiyaan cududooda, inaysan ka baqin, inay ogaadaan in cududda dalku ay tahay dhawaaqa shacabka ay tahay. foolxumada iyo wixii ka yimaadana mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doona xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisa. ragga hanjabayay xilalka qaranka haya, xilka qaranku waa meerto. maanta falka aada geysatid waa lagugula xisaabtamaya. ha isku dayina inaad idinkoo adeegsanaya awooddii ciidanka inaad faragelin ku samaysaan arrimaha dastuuriga ah ee qaranka. xisbiga wadani waa xisbi qaran. waxa uu la mid yahay xisbiyada kale ee qaranka. waxa uu la mid yahay xukuumadda. haddii aada isku daydaan inaad caburisaan, waxaad ugu dhaadhici doontaan biyo dhooqale. waxaad ugu dhaadhici doontaan meel aydan ka filaynin. waan la soconnaa xaaladda dalku marayo. inta hadhayaan lasii hurinin. ragi walaalo wuxuu ku dhaamo lawaa. ha la demiyo xaaladda sida ugu wanaagsan ee loo demin karana ha loo demiyo. deminteeduna waxa weeyaan xubnaha sharci darrada ah aynu ognahay madaxweynuhu intuu soo istaagay inuu ku hadlay luqad aan qof mas-uulihi ku hadlin,
ummadda reer somaliland hortooda uu isku qaawiyey oo uu ku dhardhigtay oo uuna tusay garashadiisa iyo garaadkiisa iyo aqoontiisa uu nagu tusay inuusan falka noocaasa aan loogu dulqaadanaynin waa in la bedelaa xubnaha ma dhacayso inay doorasho qabtaan ma yeelayno wixii falkaa ka yimaadana mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doonta xukuumadda xubnaha waddanee qaaradda yurub mar labaad waxaan ugu baaqayaa inay baaq ku qabtaan waddamadooda muujiyaan dhawaaqooda u gudbiyaan hay-adaha khuseeya daneeya arrimaha somaliland xaaladda dalka la socodsiiyaan meesha uu marayo lagula xisaabtamo falka ka dhaca gudaha haddii shacabka lagu rido xabad ay xabaddu imanayso banaanka oo halka kan ay dacwadu imanayso oo aysan u suurtoobaynin in madaxweyne muuse bixi iyo wasiiradiisa maalin kasta halkan imanaya in intii ay si nabada ku yimaadaan si nabada uga baxaan waanu uga digaynaa carruurta aada dilaysaan xuquuq iyo sharci bay leeyihiin sharcigiina halkan u yaallaa haddii ad halkaa uga awood badateen waanu ka digaynaa mar kasta yaan lagu dhiiran arrintaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقاعد واحد عبد الله سليمان. أنا هو حسبي وطني ميهي وعدنا ميهي كل مينا ميهي. سبت نقول له حويان وحنا ما قصور شيء. سومالي الآن وحنا التاريخ بدن وين وحاوه الرياء تي سومالي نفذ اللي وسنيي يشين إدفار أي سمايان نمكي يغير بكاها إبن اللي وسنيي. وتلقي يقول سوال الله. تي لبعضنا وحياهيد maalintii gumaysigii laga xoroobay 26 Juun ee 60kii tii kalena waxay ahayd maalinta la midoobay dalkii Soomaaliya ee Talyaaniga iyo Ruushku ay isaga dambeeyeen ay la midoobay xornimadeennii markaa wada naga cusubay taariikh kale ay leedahay weyn oo iyadana ah 18kii May taana ku soo laabanay imika 18kii May hadaba 18kii May shacbiga Somaliland oo dhan waxay galeen heshiis iyagoo kasoo bilaabay nabadeyntii awdal oo ku xijiyay gobolka Sool oo iyo meelihii kale lagu shiray waxaa ku xigtay Burco waxaa ku xigtay Sheekh waxaa ku xigtay Boorame iyo Berbera dadaalkii waxaa la isku Burco oo lagu heshiiyey ama ha noqdo kulmiye ama ha noqdo wixii ama ha noqdo wadani ama xisbi kasta noqdee haddii guddoonka markaa la doortay madaxweynaha aan ku dhaqmin heshiiskii Burco oo salka ku haya Somaliland dhistaankeedii ay kala soo noqotay israaci Soomaaliya ay la soo laabatay ugu istaagtay wuxuu ku sumadiisu tahay 18 May wixii lagu heshiiyey heshiiska haddii aan dib loogu laabanin oo madaxweyne la doortay uu ka beero oo uu ku shaqeyn waayo anigu waxaan ogahay inay Somaliland marnaba suurtagelinin inay mid noqoto inaanay helin aqoonsi caalami ah helmaysaay cid xukuntay ma heliso cid ka maamushan ma helisaay marka waxaan kula talinayaa madaxweynaha imika jooga haddii lagu doortay dalka Soomaaliya madaxweyne ka noqoto waxay inaad dib u eegto heshiiskii Burco oo aad tixgeliso oo aad raacdo dadka tixgelin weyday oo ka hoggaankiisa qaadan weyday waxaan kuu sheegayaa inaan Soomaaliland xukumi kareynin oo aan awood lahayn marka waxaan ka codsanayaa madaxweyne adigoo Soomaaliland maanta ku doortay inaad hawsha qaban kari weyday inaad istiqaalad qorto oo ka digto sida kuna nabadgelyo waxa anagoo madaxdii xisbiga kula hadlayna afkii taageerayaasha xisbiga wadani kana kooban Somaliland oo dhan bari ilaa galbeed maanta waxaa dhacay waa foolxumo waxaynu dooranay dalkeenu wuxuu doortay haddii Somaliland waxaynu dooranay dimuqraadiyad xisbiyo kala dambeyn sharci ayaynu dooranay inaanu ku dhaqanno dawladda iyo xisbiga waxa u dhaxeeya oo waa sharciga dadweynaha iyo dawladda waxa u dhaxeeya sharciga haddii dawladdu jebiso oo xukuumaddii loo doortay inay sharciga ilaaliso ay jebiso wuxuu geela duqdiisu durdurisay maxaad u malaysay buu yidhi arrinkiisana maxaad u malaysay marka waxa weeyaan dawladda halkan imika waxa ka muuqata dictator calaamadii dictatorka ayaa beryahanba isa soo taraya de maantana waxay soo qaadatay albaabaday soo goosatay xusbigu madaxdiisu xasaanad bay leedahay xusbiga xaruntiisuna xasaanad bay leedahay
waxa weeyaan taas waa taa talabaad waxaan kaloo halkan ka caddaynaya inaan taageersannahay raacsannahay guddoomiyaha maxamed cabdillaahi ciro xaq buu leeyahay inuu sheego waxa dareenkiisa uu noo soo gudbiyo haddaan madaxda nahay iyo haddaan taageerayaasha xisbigu haddii yihiinba iyo inuu dadkii uu taageeray inuu war ku socdiyo xaq buu leeyahay waa 100% baanu taageersannahay 100% baanu kula soconnaa in la caburiyo oo lagu duulo oo xisbiga xaruntiisa la xidho oo maanta ciidan loo dirana sharci darro weeyaan waa sharci darro waa Somaliland sidaan ku shaqayn mayso marka waxaanu leenahay maanta xukuumadda jirta haddii aanay waddanka wixii loo qabtay loo doortay aanay ka shaqaynayno aanay shaqadeeda qabsanaynin ha iscasisho maanta madaxweynuhu iscasilo iyo wasiiradiisi waa inay iscasilo dowladdaasi waa inay dowladda Somaliland wada kala samaa taageerayaasha xisbigana waxaan leeyahay waynu gaaraynaa waddankeena waynu ilaashanaynaa waddankeena innagaa leh waynu gaaraynaa guusha kuwa idinku hana baqina soo baxa dareenkiina muujiya idinkoo wax dhibaato geysanayno dalkeena waxba u geysan dhibaato geysanayno soo baxa dareenkiina soo baxa ninna ha ka baqina ninna yaanu idin caburin marka hore waxaanu doonaynaa inaan halka ka taageerno sidii madaxdii horeba ay sheegeen go-aamada xisbiga oo qaatay hadday tahay go-aamada oo ka qaatay arrinta doorashooyinka iyo arrintii ahayd maanta guddoomiyuhu ka hadleen xisbiga wadani xubnihiisa iyo taageerayaashiisa iyo shacabweynaha reer Somaliland xisbiga wadani taageera ay berito isugu yimaadaan xarunta dhexe xisbiga labada arrimood taageerina waana ku boorinayna ku dhiirigelinayna inay si xoog leh uga qayb qaataan waxa imkana soo gaariyay in madaxdii xisbiga xubno ka mid ah la xidhay waxa kaloo aynu la wada socono bulshada reer Somaliland ay wada ogtahay ilaa iyo caawila maanta in hadallo fara badan ay xukuumadda ka soo yeedhiyeen iyo mas'uuliyiinteeda kuwa amniga madaxtooyada iyo kuwa dowladaha hooseba kuwaasoo lagu bajinayo shacabka reer Somaliland fariinta halkan aan ka dirayna waxa weeyaan aan doonayno inaan shacabka reer Somaliland guud ahaanba aan u sheegnaa marka hore waxa weeye idinkoo xorabaad dul ayaa ilaahay idin keenay dhulka idinkoo xorna waxaan jecelahay inaad ka tagtaan markaa rabitaankiina iyo waxaad doonaysaan iyo mustaqbalkiina iyo aayihiina inaan laydin yeedhinin inaan laydin qasbin inaan laydin jujuubin inaan laydin oran ma hadli kartaan aragtida aad doonaysaan ma sheegi kartaan taa inaanay horta marna aanay suurtagelin baanu shacabka reer Somaliland nu sheegaynaa xukuumadda muuse waxaanu leenahay ama mas-uuliyiinta caawa xidhan ha ahaade ama dadkii kale muwaadiniinta reer Somaliland ka horreeyay labadii sano u dambeeyayba la xidhiyay ha ahaadeen ee macallimiinta iyo abwaanada iyo suxufiyiintaba ha ahaadeen ama qaar dambe oo la xidhi doono ha ahaato xadhigu bini-aadam waxba ma yeelo waxa madaxweynihii Suudaan Cumar al-Bashir oo madaxweyne dalka Suudaan madaxweyne ka ahaa 30 sanadood oo muuse ka awood iyo tamar iyo ciidan ma badnaa xabsigii isagoo samaystay ayuu caaw ku jiraa waxa maalin wito muwaadin oo xidhay reer Suudaan iyo isagii baa xabsigii Kobra ee samaystay isugu yimid muwaadinkii baa soo liido xidhay madaxweyne bal iska waran maanta kanaaca digada iyo saxo kama nooli buu waxa xabsigii soo samaystay kanaaca ku cunaysa barkhad iyo khadar waxaan leenahay caaw shacabka reer Somaliland rabitaankiinu wuxuu suurtagelin karaya ninka idin xidhaya ee maalin walba muwaadinka reer Somaliland xabsi ku ridaya codkiina idinka qorina qaadanin xabadna qaadanin inaad xabsiga ugu geysaan muwaadiniinta caawa xidhan baad suurtagelin karaysaa awood baad leedihiin awoodiina idinkoo qarankeena ku dhisanaya ku badbaadinaya laakiin yaan awoodiina iyo cashuurtiina iyo magaca dowladnimadiina yaan laydinku caburin madaxa iska kintaaga muslim kuma cabiidsamo wala madaxa kaa goyn ayuu yidhi niyaguwani xadhig waxba ma taro waxaanu leenahay oon taageerayaasha xisbiga waddani gaar ahaan ugu sheegaynaa si nabadgelyo leh oo sharaf badan oo karaamo leh oo sidii looga bartay taageerayaasha xisbiga waddani iyo guud ahaanba shacabka reer Somaliland ee soo baxyada ay walba u samayn jireen iyo ololaha inay berito si miisaan leh si mudakara si karaamo leh si xushmad iyo nabadgelyo leh ay u tagaan xarunta xisbiga waddani oo fariinta muhiimka ee hoggaanka xisbiga u sheegi doono ay qaataan ay soo qaataan ay ku hawlgalaan nimanka hadlaya ee dowladda ka hadlayay hadduu maayir yahay hadduu askari yahay iyo hadduu afhayeen yahay waxaan leenahay
shacabka reer somaliland shacab la bajiyo maaha xisbiga wadani distoorka somaliland baa wuxuu qof kasta oo muwaadina damaanad u qaaday oo uu siiyo xorriyad u siiyey inuu dareenkiisana cabiri karo aragtidiisana si salmiyo wanaagsan kusoo gudbin karo wax iska hortaagi kara iyo wax u diidi kara iyo wax qaban karaa ma jirto in muwaadinka reer somaliland oo fikirkiisa cabirto laakiin nidaamka xun ee faashilka ee dictatorka ee gobolkiisu dubayaabay caadooyinkiisa iyo dabeecadihiisa tahay inuu ku cabsi geliyo xadhig iyo hanjabaad iyo cashuuqde waxaan sheegaynaa taa haraa loo eeday xoogayaal badan shacabka reer somaliland u nahay ballanteenu waxa weeyaan oon shacabka reer somaliland aan dhammaantii u wada gudbina guud ahaan war inaanay caburinta iyo xal iyo qoortan iskaga kintaagaya iyo cashuurtiina aan idinku dulmiyaya inaanay xal aanay u keenayn inaan shacabkani aanay aqbali karayn in shacabkani shacab xor oo hore u diiday dictator iyo nidaamyo maanta faacishooda ay muuqdaan oo kale sidoo kale inay hore u diideen oo hore loo eeday ayay shacabka reer somaliland ay dareysan yihiin dalalka yurub oon xogeeyahoodii guud ahay oon halkan caawa aanu ku matelayn dhammaan dalalka yurub 14 dal oo kamid a qaaradda yurub xisbiga wadani oo mas-uuliyiin iyo maamul iyo xarbo ku leeyahay waxaanu dhammaantood caawa halkan aan ugu gudbinaynaa tallaabo kasta oo sida afhayeenku sheegay ka fushay gudaha somaliland oo qof xil haya oo dareyskii ciidanka xidhan oo maxaa la yidhahda guddigii golihii fulintahay tallaabo kastuu qaado in la diiwaan geliyo oo report gareeyo oo tallaabooyin halkan bay iman doonaan halkan ay noogu iman doonaan in qof walba reportkiisa la diyaariyo aad iyo aad baanu taageeraynaa baaqii uu soo saaray gudoomiyaha xisbigu cabdiraxmaan maanta aad iyo aad baanu taageer weyn u bixinaynaa marka labaadna aad iyo aad baanu cambaareynayna falka foosha xun ee lagula kacay madaxdii xisbiga khadar iyo barkhad runtii maanta waddanka somaliland waxaa u dimeeyey gabal madow dimuqraatiyadii somaliland god baa lagu riday somaliland hore ayay uga dagaalantay dictatoriyad shicibka somaliland waxaanu leenahay horaa isaga dul qaadin karay talis gumaysta ah maantana waad iska dul qaadi karaysaa kani wuxuu leeyahay weliba kii hore ee iska dul qaadeen kala qaybin iyo qabyaalad oo idinku xukumayo ayuu dheeryahay waa soo baxa taageera si mug iyo muusaanle usoo baxa berito awoodiina muujiya oo iska dul qaada